salaamullaahi calaykum daawadayaal kusoo dhawaada wararkii u dambeeyay suuqa kala iibsiga ee laga qoray kooxda Manchester City. Kooxda difaacanaysa Premier League ayaa rabta inay isku xidhso booska daafaca dhexe, waxaana la xiriirinayaa daafacyo badan oo booskaas ka dheera, waxaana ugu cadcad in la soo wareegto daafaca dhexe kooxda Juventus Demiral, kaas oo ay ka gudbisay dalab rasmi ah oo dhan 45 milyan oo euro. sidoo kale daafaca isku xulka yihiin kooxda Leicester City Kaglar Suyunki ayaa lala xiriirinayaa kooxda Manchester City. sidoo kale waxaan meesha ka maqnayn daafaca dhexe kooxda Bournemouth iyo daafaca kooxda Inter Milan Skriniar. sidoo kale waxaa lala xiriirinayaa laacibka khadka dhexe kooxda Tottenham Hotspur Harry Winks. daawadayaal weydiinta waxa ay tahay iyo jeclaan lahayd inay la soo wareegto kooxda suuqa lagu jiro.